السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال halkani waa Samaka Media kuna soo dhawaada daawadayaal barnaamijkeena daba qabad anigu waxaan ahay qariyaan Samaka Cabdi Aadan. Daawadayaal waxaynu maanta ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena daba qabad abwaanka weyne caanka abwaan Maxamed Cabdulle Cali Gamuute. Allah u naxariistay abwaan Gamuute waxa uu dhashay 1880 waxa uu ku dhashay deegaanka Burcay Caynaba aagooda. waxa uu dhintay 1940 Gamuute sida la wada sheegay waxa uu caan ku ahaa geela jacaylkiisa. waxa uu ahaa ama uu in badan soo ahaa reer guura reer miye oo degan. Allah u naxariisto waxa uu abwaan Gamuute ahaa halgamaa la dagaalami jiray ama ka soo horjeedo aad uga soo horjeeday gumaystiga Ingiriiska. waxa uu muddo badan ku noolaa carro ogaadeen meesha loo yaqaan ama dhulka ciid loo yaqaan doolaya aageeda. daawadayaal taariikhda abwaan Maxamed Cabdulle Cali Gamuute waa ay dheer tahay balse waxaynu maanta ka soo qaadan doonaa gabay kamid ah gabaydiisa oo caan ah. gabaygan oo magaciisa leeyahay wadaad yahuud dawaafkay. gabaygan sida uu ku soo baxay ama sida uu abwaanka sababtii uu u tiriyay waxay ahayd abwaan Gamuute waxa uu in badan ku noolaa carro ogaadeen oo abtiyaashii ahaa la deganaa jiray. balse waxa dhacay marar kamid ah ama muddooyinkiisii taariikhda nololeed wax mar kamid ah waxa dhacay in gabadh la oran jiray Dahaba aw Nuur oo u doonay nin habar yoonisa ay guursadeen qolo ogaadeena iyadoo u doonay ninka habar yoonis raacinash. qisadaas sababteeda ayaa ay soo dhaceen abtiyaashii kadib markii uu ka codsaday abtiyaashii oo ogaadeen in inanta la celiyo aan ogaadeen arinta xeer jabinta ah aanay ku kicin balse markii dhag jalaq loo siin waayay waran la iyo wadaadba waxa uu go'aan ku gaaray abwaan Gamuute inuu ka googoosto carro ogaadeen iyo meesha ay degan yihiin una noqdo Caynaba iyo aageeriye carraha mar jeclo. markii qisadaas dhacday abwaan Gamuute waxa uu ku soo noqday carraha mar jeclo isagoo oo yimi meesha loo yaqaan Caynaba. kadib markii uu Caynaba yimi waxa waraysi ula yimi nin kamid ah raggii aaga deganaa oo ahaa nin ogaadeena wadaadna ahaa oo la deganaa beesha. abwaan Gamuute aad baa ayaa uga cadhooday arinta isagoo u aanayay inuu ninkan yahay nimankii gabadha ka dhacay. barnaamij noocaasna ka cadhaysan ayaa uu mar ku hamiyay inuu ninka dilo oo seefta mariyay balse Ilaahay idamkii waxba ma kala gaadhin. gabaygana ana meeshii uu ka tiriyay abwaan Gamuute sidoo gabaygu inoo sheegi doona abwaan Gamuute ninka waa u waramaya isagoo aakhiritaankan ugu soo gabagabeynaya waxa ay uu ka mudnaa iyo waxa uu isagu sameeyay. waxa uu ka mudnaa inuu wax u geysto maadaama tolkii ay isaga dhibaato iyo dhac u geysteen isaguna inuu ninkan ka argoosto balse taa isagu muusameyn isagoo eegaya wadaadnimada ninkan oo magan ahaayo reerka la deganaa barnaamij noocaas soo eegaya. waxaana ku cadaynaysa beedka u dambeeyay uu leeyahay doofaarada reer xisiye duulkii baxa waadle wala ina dekanadu dhiban waad u dilantahay. hadaynu ku soo dhawaano gabayga abwaanku waxa uu yiri wadaad yahow dawaafkay hadaad wariga doonaysid dibnahayga inaan kuu furaa dawba ma ahayna waxsan haatan ugu daalaya way iska ka diriyay rag haduu dareertada sariyo duunka ka culaaba daandaansi iyo looga roon diraalayna waa inuu intuu kor isu dayo kala dareeraa dalka waana joogina tolka waa dagaalamay mala adiga dabada rag badan ba dugaag cunaya dara tolay la iska qaad ceelkii doqon kaab dara tolay la iska kici ceelkii doqon kaab haweenkii dudada meerayo dugeydii yeereysay ragii dalaga beeraha tabcaday dumi bakhaarkii dacwadii rafliyo nooga timi daahir iyo xaashi digniintii istaba joogtay iyo weedhi dami weeday inay reer subeer kol isku day igama daahnayn tayax weerar yabaan ka bixi diilintii hore jeeru dagaal xumi ka dhaco qola ku daadoonto dambaa taliye reer aadan gowl diidan namadii awliyahan degtaasu maro webi ku dayn qaadid darintii sideed taala iyo doolin ku hayaan dabkana waxa u siday reer afkaabdiya laayaan. dayrtii dhaweed waxa ka lumay danaba waaweyne kolla dirira dooyina hadday dibadda joogtay Cabdilina ka daba guurintay duhur boqoleen darwiish iyo mareexaana waa durugsanaadeen ugaaskooshindoygu u kacay dib isu soo laabiyay dooxii malaa'ikay sidii digirin jiifaana meeshii dowdow bahgiri
soo dabayshadee dusha cagamurood baa lo-dii ugu dareertaye doobiga wax laga buuxiyaa daali soo dhalay. niman daabixiina u kacay duulkii reer xamale digtii mooyihiiyo waa qabeen darartii baylaad wax amaadin dowriir ku furay doodii iyo boolada dugsigii abool iyo burqay damacsanaayeeneen reer calina waxa laga dayaa daaqi xananley dusha maholin meeshiyo dannood degeladii dhiito dooxii maraaliyo gobliyo daraydii laas dhuure himir dacaladeeduu fadhiyey dalabla haaruun daratoole iyo faafan buu degay ibraahiine habar calina doolay fadhiyey dohiyo ceel gaab daratoole iyo faafan buu degay ibraahiine habar calina doolay fadhiyey dohiyo ceel gaabe saasuu dadkiinii ahaa mooyi dabadeed bishii dogo dabaadigii tagaan soo dabayshadeeye anana dayrta taynugu faleen doyna laga sheegaya daarood ismaaciilbe maqal danafaskoodii iyagoon dekano weynna qabin daydna lagu toosin caynaanshihii naga durkaye dooxatada raacay nimankii dunjiga reer ishaaq dayra ka ahaaday reer dala diraacdaba ka qaad dahaba aw nuur damaashaadka reerihii ka dhacay daramalkii yeedhay durbaankii ka baxay baanad maqal duudii aw balale degma haddii la dhaco sheekhyada meel daweyn jiray eegana dambow kama baqaan duub cadii bogoxeed dadkana lama hafree awayow waxu daliilkiiye iyadoo ninkii doonay iyo duubkii dhalay joogin dulmi bay ku mehersheen intoo daaha loo rogay anna waa dumaashay middaa loo dabaaldegay waxba yaan isdiidsiina waa daabac igu yaala mid dila mid igu diirsadiyo midaan ii doonaynin raggan maanta dahare uga tegay dowlad maahayn derme iyo barkimo laysdul dhigay derbadiiyo barkimo laysdul dhigay daacad ha u filine doobiga karuurka dhanoo ha igu soo degine dugsigaaga jiifso markaad diilalyada reebto ee uu waagu daalaco haddaan debadda kaa eego doofaaradii reer xisiyo duulkii baxa waadle walla inaad dekenadoodu dhiman waad u dilantahay. abwaangabuunta gabayga intaas kusoo gabagabeeyey soo wadaadkiina u sheegay inuu meesha iskaga carro intaan waagu